bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan daawadayaal halkani waa bartaan ku leenahay youtube-ka channelka xulka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida kaga hayno qodobada aad ku daawan doontaan muuqaalkaygan intuu hawada ku jirana waxa kamid ah madaxweynaha maamulka Puntland oo lagu eedeeyay boob doorasho xilli halkaasi ay ka socoto doorashada shanta kursi oo ka tirsan golaha shacabka ee deegaan doorashada ay tahay maamulka Puntland waa idin soo gudbin doona maamulka Puntland oo soo bandhigay ciidamo tababar loogu furayo xerada ee gudaha maamulkaasi Puntland waa idin soo gudbin doona iyadana xildhibaankii ugu horeeyay ee deegaan doorashadiisa ay tahay maamulka Puntland oo loo doortay golaha shacabka banaanbaxyo lagu taageerayo baarlamaanka Britain doodii uu ka yeeshay aqoonsiga Somaliland toddobaadkii aanu soo dhaafnay oo maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa ee caasimadda jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland waa idin soo gudbin doona ayaan gadoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal waxa uu gaaray magaalada Garowe si halkaasi uu goobjoog kaga noqdo shan kamid ah kuraasta golaha shacabka oo maanta halkaas ka dhacaysa doorashadooda waxaad kaloo maqli doontaa Soomaaliya iyo oo ka wada heshiiyay qorshaha amniga qaranka qodobadaasi wixii nagu soo kordho ayaan muuqaalkaygan intuu hawada ku jiro saaxiibayaal ku korfeen doona ay hadii ay tahay daawada markaadii ugu horeysay waad soo booqatay fadlan muuqaalkan la garee oo saaxiibada u share garee hadii ay tahay markaadii ugu horeysay waad soo booqatayna sidoo kale muuqaalkan subscribe saaro si ay ku soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan ee halkan mar walba aan ku soo daabacno ugu waqtigii salaada hadii ay tahay waa ku muhiim inaad salaada soo dukatid oo dib ugu soo laabatid daawashada muuqaalkan aynu guda galno markan qodobadii aad maqasheen oo dhameystay hore ciidamada booliiska Puntland sareeye guud Cabdi Xasan Xuseen Cabdi ayaa si adag uga hor yimid qaabka loo wado doorashada ka socota Garowe waxa uu sheegay in la heli karay goobo ka muhiimsan xeelada ciidanka oo la aaminsan yahay balse uu socdo qorshe lagu boobayo doorashada golaha shacabka oo halkaasi iminka qaar ka tirsan ee ka socoto waxa ayaa dara ah in maamulka Puntland oo 23 sano jirsaday maanta lagu qabto doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya xeelada ciidanka ee 54 iyadoo oo la heli karay goobo ka haboon ayuu yiri taliyaha waxa uu intaasi ku sii daray talaabada baalmarsan habraaca doorashada ee lagu heshiiyay waxa ay tusaale u tahay kalsooni darada haysata maamulka waxaana ay dhaawac ku tahay maqaamka Puntland iyo hufnaanta doorashada ka socota deegaanada maamulka Puntland ayuu sii raaciyay taliyaha oo ka hadlayay arrimaha doorashooyinka boobkan iminka la soo warinayo in lagu hayo qaar ka tirsan golaasta golaha shacabka ee deegaan doorashada ay tahay ayaa waxa uu ku soo aadiyay xilli shan kursi oo ka tirsan golaha shacabka oo deegaan doorashada ay tahay maamulka Puntland maanta lagu dooranayo magaalada Garowe kuwaasi oo qaarkood la doortay kadibna la sheegay in ay la tartameen qaar ka tirsan ilaaliyahooda oo malxiis ahaan ay markaas kula tartameen dhanka kalena waxaa dugsiga Xorgoble tababar loogu furay cutubyo ka tirsan ciidamada difaaca ee Puntland kuwaas oo labadii sano ee la soo dhaafay ka shaqeynayay amniga gobolada Puntland si gaar ahaan gobolka Bari sida Sanaag Nugaal iyo Mudug ciidamadan muddada ay ku jiraan dugsiga Xorgoble waxaa la siin doonaa tababar guud iyo mid qaas ah habka baarista iyo ka hortagga falalka lidiga ku ah ammaanka ogaanshaha iyo xogta dheeriga ah ee ay markaasi maleegayaan dhagarqabayaasha ee la doonayo in lagu soo weeraro qaar ka tirsan deegaanada maamulka Puntland ayaa la bari doonaa ayaa lagu yiri inta ay tababarkaas ku jiraan ciidankan oo horey tababar duwan u qaatay ayaa markan dawladda waxa ay doonaysaa in si gaar ah loo diyaariyo waxaana loo sameyn doonaa muddada ay tababarka ku jiraan hirgelin dalacsiin iyo abaalmarin oo markaasi ay ku mutaysanayaan sida dalka ay uga shaqeeyeen daafurka tababarkan waxaa goobjoog ka ahaa gadoomiyaha gobolka Karkaar Cabdi Saciid Cismaan taliyaha booliiska gobolka Karkaar gaashaanle Sare Faarax Nuur Islaan duqa degmada Qardho Maxamed Buraale agaasimaha guud ee madaxtooyada Qardho Cali Axmed Saciid dhanka ciidamada difaaca maamulka Puntland waxaa joogay taliyaha guud ee ciidamada difaaca ee dowlad goboleedka Puntland xubno ka tirsan oo ay ka mid yihiin taliyaha ciidamada silsilada gaashaanle Sare Saciid Nuur oo loo aqoon og yahay taliya Qoolaale taliyaha ciidanka isluubta gobolka Karkaar gaashaanle Sare Saciid Bakali taliyaha dugsiga Xorgoble Burhaan Canuud macallimiinta dugsiga howlwadeenada dugsiga Xorgoble ee maamulkaas Puntland oo maanta
qaar ka mid ah ciidamada maamulka Puntland loogu soo xareeyay tababar. Dhinaca kalena Cabdi Ibraahim Warsame Qowdhan ayaa loo doortay xildhibaan kursiga tiriskiisu yahay 196 ee golaha shacabka ee baarlamaanka cusub ee 11aad ee Soomaaliya. Qowdhan ayaa tartan uusan ka furnayn kursigiisa waxaana la tartamay mid ka mid ilaaladiisa oo malxiis ahaan uga soo qayb galay. Cabdi Ibraahim Qowdhan ayaa hadda ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda maamulka Puntland. 4 kursi ee harsan ayaa la filayaa saacadaha soo aadan in ayana la soo doorto oo la soo shaaciyo ragga ku soo baxay 4 kursi ee ka hartay kuraasta maanta lagu ballamay in lagu qabanayo doorashadooda magaalada Garowe ee maamulka Puntland. waa tahay weli waxaad la socotaan muuqaalkayga oo aanu diirada ku saareyno wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida. markan banaanbax lagu taageerayo doodii baarlamaanka UK ee isbuuciina soo dhaafay ee ka yeesheen aqoonsiga Somaliland ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Hargeysa ee caasimadda Jamhuuriyadda Iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland. banaanbaxan oo lagu qabtay beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan iyo siyaasiyiin ka tirsan maamulka Somaliland. waxaana ka mid ah siyaasiyiintaasi madaxweyne ku-xigeenka maamulka Somaliland. baarlamaanka dalka Ingiriiska ayaa isbuucii hore dood dheer ka yeeshay arrimaha aqoonsiga ee Somaliland. doodaas oo ahayd mid dhinacyo badan ay xildhibaanada iska taageen aqoonsiga Somaliland iyo sida ay dowladda UK ka yeeli lahayd arrimaha aqoonsiga ee Somaliland. doodaas oo in ku dhow saacad socotay. xildhibaanada ayaa intooda badan la dhacay dooda oo u soo gudbiyay xildhibaanka Gavin Williams oo ahaa xildhibaan